السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhegaystayaasha iyo daawadayaasha sharafta leh ku soo dhawaada mar kale iyo channelkeennii kororso aqoon iyo casharkeennii biology secondary form 1 chapterkiisii labaad casharka shanaad. casharkeena maanta waxa uu ka bilaabanayaa the nucleus bu'da. waa qaybtii ugu dambeysay ee qaybaha seelku uu ka kooban yahay. cell membrane baynu ka soo hadalnay iyo cytoplasm. maanta waxaynu ka hadlaynaa the nucleus bu'da aynu kaga hadlaynaa. Nucleus is a double membrane band structure containing a viscous fluid known as nucleoplasm. bu'du waxa weeyaan waa laba xub oo isku daboolan weeye. waa structure noocaas u samaysan weeye. waa laba dabool leh dareere dhiiqa ah oo la yidhaahdo nucleoplasm leh. bu'da dhexdeedii waxaa ku dhex jiro nucleolus, bu'yaal yar yar ayaa ku dhex jiro, iyo chromatin reticulum ayaa ka dhex raaraca. inta badan bu'du shapekeedii waxa weeyaan waa qaab spherical ah, goobo ah, ama oval qaab ukumeed ah ayay ku imaanaysaa. bu'du waxay leedahay wax la yidhaahdo nuclear membrane, dabool bu'eed ayay leedahay, ama nuclear envelope, baqshad oo waxa weeyaan bu'eed ayay leedahay. waa dulduleelo yaryar ama dhibco yaryar weeye oo la yidhaahdo nuclear boris la yidhaahdo weeye. waxay ogolaanayaan sheeyaasha in ay soo geli karaan kana bixi karaan bu'da dhexdeedii. waxaa kaloo bu'da laga helaa nucleolus, saan hore u sheegnay, bu'yaal yar yar. waxay mas-uul ka yihiin in ay soo saaraan ribosomiska. chromatin reticulumkana ama chromatinisku ayaguna waxaa ku dhex jira hereditary materials, waxyaabaha hidosidaha DNA da la yidhaahdo ayaa dhexdooda ku jiro. haddaynu soo koobno shaqada bu'da ay qabato, the nucleus controls all the activities of the cell. bu'du waxa ay kontrooshaa dhammaan howlaha seelka ka dhacaya oo dhan iyadaa kontroosha. waxaan halkaa ka gelaynaa structure ee bu'da ku dhex jiray oo la yidhaahdo chromosome. chromosome waa erey latini ah weeye. haddii la fasiro wuxuu noqonayaa colored body. chromo means colored, some means body. chromosome waa shay kalareysana laga wadaa. marka waxaa laga helaa bu'da dhexdeedii ayaa laga dhex helaa. chromosomku marka waxaa weeyaan are thread-like structures found in the nucleus of the cell. waa qaab dhismeed oo sida dunta oo kale ah weeye. seelka laga dhex helaa. kiimika ahaan wuxuu ka samaysan yahay deoxyribonucleic acid, waa DNA, and proteins iyo protein uu ka samaysan yahay. labadaa kiimiko ayuu ka samaysan yahay, DNA iyo protein. chromosomku wuxuu ka samaysan yahay labadaas. DNA maxaa la yidhahdaa? DNA is the genetic material that carries the genetic information of each cell. waa shayga hidasidaha ah ee waxa weeyaan xambaara ama qaada warbixinta hidosidaha seel kasta u sida. waa shay hidosida ah oo dhexaltooye ah. waxa uuna xambaaraa warbixinada hidosidaha oo dhan oo seelku uu leeyahay. waxyaabaha genetica la xiriira sida isu ekaanshaha, sifooyinka la kala dhexlaayo, waxyaabahaas oo dhan oo noolaha ay kala dhexlayaan, barentiga iyo caruurta ama offspring, waalidka iyo caruurtiisii, sifooyinka ay kala dhexlayaan oo dhan meesha laga helayo weeye DNA-du. it has the ability to duplicate itself. way isbadanaysaa iyadu. copy ay noqonaysaa, laba iska dhigaysaa. waxaan ka wadaa duplicate-ka forms a new complete copy of it. copy ay samaynaysaa marka. iyadiyaa lama noqonayso. waa intuusan seelku bilaabin inuu qaybsamo. tirada chromosome ee laga helayo
seel kastoo nool dhexdiisa seel kastoo nool seel kastoo ilaahay abuuray oo noolayaasha ku jiraay koromosoomyada laga helayo waxa weeyaan waa number constant ah weey waa number degan ama sugan weey nooc kasta oo xayawaanada ka mid ah koromosoomyadu way kala duwan yihiin dhirtu haday ahaan lahayd masagada haday ahaan lahayd galeyda haday ahaan lahayd cambaha dadka haday ahaan lahaayeen hadii xayawaanadu ahaan lahaayeen geel loo ari xayawaan la arkaa seelashiisii tirada koromosoomyada laga dhexlayo seel kasto waxa weeyaan way kala duwan yihiin tusaale hadaynu soo qaadano in corn badarka hadaynu soo qaadano galeyda ama masagada hadaynu soo qaadano waxa laga helaa 20 kromosoom ayaa laga helaa seel kasto oo galeyda kamid ah waxa laga helaa 20 kromosoom laga helaa digirta waxa laga helaa 14 kromosoom ayaa laga helaa seel kasto bani aadanka waxa laga helaa seel kasto 46 kromosoom ayaa laga helaa inta waa tusaalooyin way badan yihiin wixii inta ka badan marka waa baaritaan baad sameyn kartaa waad helaysaa google iyo meel walba daad geliso xayawaan kasta oo u baahato number of chromosomes waa helaysaa waxaa jira marka laba nooc oo seelal ayaa jiro oo noolaha jirkiisa laga helo noolaha isagoo seelal u ka sameeysan yahay hadana seelashiisa laba nooc ayaa loo kala qaadaa somatic cells iyo sex cells ala kala yiraahdaa unugyo oo somatic ah yani body waa jirka laga helaa jirka oo dhan laga helaa iyo sex cells iyo unugyo oo waxa weeyaan jinsi ah yani taran qaabilsan marka seelasha qofka bani aadamku uu leeyahay laba oo kala baxaan kuwa jirka laga helo iyo kuwa waxa weeyaan xubnaha taranka laga helo sex cells la yiraahdaa farqi wadi jadwalkan aan ku cadeynayna halkan waxaan kaga hadlaynaa somatic cells yani body cells unugyada jirka laga helo and gametes ama reproductive cells unugyada taranka laga helo jirkaaga marka wuxuu u qaybsan yahay qayb body ah iyo qayb waxa weeyaan gametes ah ama reproductive oo taran ah meelaha aynu iskaga barbar dhigayno waxa kamid ah location meesha ay yaaliin somatic cells ka unugyada jirka xagee laga helaa in the whole body jirko dhan laga helaa gametes unugyada taranka qaabilsan xagee laga helaa in gonads means reproductive organs xubnaha taranka laga dhaxelaa chromosomal number tirada chromosome ay leeyihiin somatic cells waa meeqa waa diploid weeye 2n I mean waxaan ka wadaa diploidka contains the total number of chromosomes tirada chromosomyada oo guud laga helaa tusaale bani aadanka 46 chromosome waaye cell kasto bodyga marka jirka bani aadanka marka la fiiriyo cell kasto 46 chromosome ayaa ku jirto laakiin marka laga hadlayno gametes ama reproductive cells unugyada taranka marka laga hadlayo waxa ku jirto 46 n ku jirto haploid half ku jirto meesha haday ahayd diploid oo laba ahayd oo dhaay ahayd laba ahayd halkaan half weeye n weeye I mean waxaan ka wadaa contains half the number of chromosomes tiradii chromosomyada kala baro barba laga helaya 46 haday ahayd somatic cells gametes waxay noqonayaan 23 laga helaa kind of division nooca ay u qaybsamayaan cellular division bay sameynayaan somatic cells ka division ka ay sameynayaan waxa weeyaan mitotic cell division ala yiraahdaa mitosis ayaa loo yaqaanaa kuwana waa meiotic cell division ama meiosis ayaa loo yaqaanaa mid walba waynu sharxi doonaa waxa laga wado waa nooc ay u qaybsamaan tusaale marka somatic cell waxa ayaa laga rabaa marka cell laga helo jirka laga helo oo noolaha corn plant kamid ah badarka kamid ah ama galeyda kamid ah body cellkiisa wuxuu ka kooban yahay 20 chromosome bani aadanku wuxuu ka kooban yahay 46 markii gamete ay tahayna taran ay tahay seelasha taranka waxa laga helaa
dhirta ama xayawaanada laga helaa. Bowling greenka laga helaa ama ova ugxanta laga helaa. meesha ahayd 20 kala bar marka 10 bay noqonaysaa. corn plant galeyda waa 6 chromosomes way chromosomyada oo taranka qaabilsan ama jinsiga. human being bani aadanka 46 laba kala dhig 23 way markuu tarmayo. waxaan halka ka galeynaa marka labadii process baynu sharxaynaa the cell division qaybsamida uu qaybsamayo cellka. intaanan sharxin casharka si guud baynu u sharxayaa baan u sharxayaa. cell divisionka waxa uu ka dhacayaa laba meel somatic cells iyo reproductive cells unugyada jirka iyo unugyada taranka. kan jirka ka dhacaya waxa la yiraahdaa mitosis baa la yiraahdaa. ujeedada uu u dhacayaan waxa weeyaan growth weeye waa koriin. wuxuuna ka dhacayaa jirka noolaha ayuu ka dhacayaa. tirada number ee chromosomeskana waa fixed weeye ma qaybsamayo. wuxuu sameynayaa copy buu sameynayaa laba ayuu noqonayaa. sidaas oo ku tarmaa waa qaabka ay ku tarmaan unugyada jirkaagii weeye. ka kalena waxa la yiraahdaa meiosis baa la yiraahdaa. wuxuu ka dhacayaa gonads xubnaha taranka uu ka dhacaa. ujeedadiisu waxa weeyaan waa taran. kii hore koriin buu ahaa kan waa taran way ujeedadiisa. wuxuuna u kala dhacayaa seelka laba ayuu u kala dhacayaa. 2n meeshay ahayd kii hore copy uu sameynayay 2n iyo 2n uu kala dhacay. kan 2n markuu yahay laba uu kala dhacayaa n iyo n. labadii haddana laba usii kala dhacayaan. afar ayuu soo saaraya 4 daughter cells uu soo saaraya. afar cell oo isleh ayuu soo saaraya. kii hore wuxuu soo saarayay 2 daughter cells laba cell oo isku nooca. halkaan baynu ku sharxaynaa marka mitosis aan fiirino. waxaa kaloo loo yaqaana somatic waa la yiraahdaa. vegetative cell division waa la yiraahdaa. results in new cells with genetic material that is identical to that of the original cell. waxaa ka dhalanaya selal cusub ayaa ka dhalanaya mitosisku. kuwaasoo shayga hidisadaha leh waana isku mid. seelkii asalka ahaa iyo kii koobiga laga dhigay labada xabo waa isku mid weeye genetic materialka. kan 46 ku dhex jirto oo chromosome kana 46. mitosis occurs in organisms undergoing growth. mitosis wuxuu ka dhacaa nooleyaasha koriinka sameynaya, horumarka sameynaya, dayactirka jirka sameynaya ama taranka jinsilaawaha sameynaya. taranka jinsilaawaha waxaa la yiraahdaa is the production. Sexual reproduction is the production of offspring from one parent. taranka jinsilaawaha waxaa la yiraahdaa waa in la soo saaro caruur hal parentna uu soo saaro oo seelkii ayaa copy uu sameynaya laba ayuu noqonaya. kaasa waxaa la yiraahdaa asexual. marka mitosisku waa processkaas uu ka mid yahay oo seelkii n ahaa wuxuu noqonayaa 2n ayuu noqonayaa. marka 2n ahaa 2 daughter cells uu soo saaraya. marka laba cell isleh ayuu soo saaraya. marka meiosis-ka markaynu ka hadalno wuxuu ka dhacayaa reproductive cells unugyada taranka uu ka dhacaa. gametesku ka dhacaa. waa haploid weeye waa half number uu soo saaraa. meeshii 2n ahayd n iyo n ay u kala dhacdhacaa. laba number uu soo saaraa laba qaybood uu kala dhacaa. haddana mar labaad ayuu sii qaybsamayaa. waa lasii haafeynaya. labadii haddana laba kaley noqonayaan. 4 ayuu soo saaraya marka daughter cells waana markuu tarmaayo seelka sida aad uga jeedaan sawirkan. ujeedadiisuna waxa weeyaan waa taran. waa half number of chromosome ayaana ku jiro. kii hore markii 46 ahayd kan wuxuu noqonayaa 3 iyo 20 ayuu noqonayaa. kii hore wuxuu ahaa 46 iyo 46. kana 46dii waxaa loo kala qaadayaa 3 iyo 20 iyo 3 iyo 20. marka casharkeeni maanta halkaas ayuu ku eg yahay. waxaa inoo haray hal dersi oo ah transportation across the cell membrane oo aynu kusoo gabagabeynayno chapterka 2. hada wabillahi tawfiiq. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. fadlan subscribe garay oo la soco casharadeenii.